waxaa magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliya ka qabsoomay kulan ay isugu yimideen qaar ka mid ah dhalinyarada ku midaysan ururka horumarinta Lababaar Youth Development. xafladan oo lagu dooranayay maamulka sare ee ururka ayaa waxaa ka soo qayb galay dhalinyarada ka soo jeeda magaalada Lababaar iyo marti sharaf ka socotay golaha horumarinta gobolka Shabeelle ee dowlad deegaanka Soomaalida. waa kuwan gudoomiyaashii hore ee golaha shuurada iyo fulinta Shaafici Xirsi Faarax iyo Shaafici Badal Cali, waxaana ay sharaxayaan hadafkii loo aasaasay ururkan iyo waxqabadkiisa intii uu jiray. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وين السلامي دمانتين كسوق بقلياش أوركا مرت شرفتا حمناها LYD قفل بمجا عيسى مسك كيسان كسلامي ما أنت ومالين كلا أو فرحات أو وين ومعلمه كل ما ده LYD اللي قبل شري مالين كمدا سوق بقلياشها حفلة ورنتي مجال الرب كشري قفل بعمل ده رأس كسوق القامي dad badan oo hadda kamid ah teamkii qornayna ay ilaa hadda wali ay soo gaar laayeen oo soo socdaan. marka dhamaantiin waa mahadsantiin, qof walba magaciisa masabkiisaan ku salaamay. waxaan rabaa inaan wax yar waqtiga ciriiri ah dartiis aan u soo koobo hadaladeyda. saad ogtihiin ba ururkan LYD waxa la aasaasay muddo 3 sano ku dhaweeyo hadda maraya. kulankan waa kulankii saddexaad ama sanad guuradii saddexaad. waxaa noo weheliyay sanad guuradan oo ku cusub oo horay u jiri jirin inaan ku soo kordhinay doorasho xubnuhu ay dooranayaan. awalna magacaabis ku imaa jirtay. maanta marka barnaamijkeena waxa weeye waana kulankii waana doorasho. ujeedada shirka waa labadaas. waxa weeye marka doorashada iyo arrimaheeda waxaa sharaxay tiimkii ku shaqada lahaa ayaa sharaxay iyo sida loo coday doono. haddaan marka usii galo kalimateynkayga, LYD waxaa loo aasaasay waa ururka horumarinta dhalinyarada reer Lababaar. waxaa loo aasaasay inay ninka la yiraahdo ka shaqeeyaan arrimaha deegaanka, inay dhalinyarada daafaha dacallada ku kala fiirsan ee reer Lababaarka ah inay isku raajiyaan oo isku ururiyaan. arrimahaas iyo arrimaha quseeya ayaa ninka la loo aasaasay. ilaa haddeertaana waxaan ku jirnaa dabcan wadadeedii aan ku soconaa. waxa weeye marka howlo badan hadda waa la soo maray, wax badanna waa inoo dhiman yihiin, weli la isma gaarin. bilaa waan joognaa, weli meesha aan kasoo bilaawno hoos agaarkeedii aan joognaa. inkastoo waqti badan iyo howlo badan iyo arrimo badan ay noo soo qabsoomeen, wax badan ay noo dhiman yihiin. khudbadeyda 3 qodob ayay ku astaysan tahay. ma rabo inaan sii dheereeyo, ma rabo mid waa waxqabadkii aan soo qabanay iyo midda aan hadda ka bacdi rabno inaan qabanno haddii aan doorataan. waxaan rabaa marka waxqabadkii aan soo qabanay inaan wax yar abaaro oon eegaan rabaa. waxaan soo qabanay howlkan tookadii hore nala soo magacaabay, magacaabisaan ku nimid. tookadii hore nala soo magacaabay. waxaan ka ballan qaaday howlkan. ballanqaadkii aan ballan qaaday waxaa kamid ahaa inaan doorasho aan qof cod geey doono iyo inaan maaragtay howlaha deegaanka iyo waxaas aan u gacsiin doono. labadii maado oo aan ballan qaaday labadiiba waa waxbaan ka soo qabanay. oo doorashadii maanta waxa u jeedin wiligeed iyo allaheed inaan doorasho LYD aan maaragtay in qof la soo magacaabo maahan aan inta hool la keeno ay qof dooran. midda kale aan rabaa ayadana inaan meeshaas aan kama istiifiyay waxa waaye waxqabadka kale oo ayadana LYD. annaga waxqabadka LYD 2 qodob oo noogu asteysanaay. mid waa midaas doorashada, midna waa la socodka deegaanka. la socodka deegaanka saacad iyo habeen iyo maalin ayaa ula soconay si macnaha xaaladiisa iyo aqaabadiisa aan ula soconno. baahidii ka soo yeertaa huna haddii aan ka jawaabi karnana aan uga ka jawaabno, haddaan ka jawaabi karinna aan ula soconno maadaama meesha dadka jira ay dad diirkeeniya ay yihiin. ayadoo waliba aan muddo badan aan macnaha aan ka jawaabnay oo dhowr jeer aan ka jawaabnay oo la ogtiin oo rabin inaan macnaha taas ku sii dheeraado. midda kale ayadana aan soo qabanay oo lagu macnaha oo la iloobi karin oo wax la iloobi kara aan ahayn waxay tahay in maanta LYD wiligeed yahay iyadoo is dooran in anaga doorasho aan keenno. midaas waxaan isleeyahay haddii aan markale i doorataan in ayadana arrintaas kale halkaas ka sii dhammaan doonto. gudoomiye ku-xigeenka golaha horumarinta gobolka Shabeelle Axmed Xaaji Cismaan Daqare iyo madaxa maaliyadda Cabdiraxmaan Ashkir ayaa u mahadceliyay dhalinyarada reer Lababaar kuna bogaadiyay horumarinta deegaankooda. marka hore waxaan u mahadnaqayaa Allah subxaanahu wa ta'aala marka xigta reer Lababaar oo dhalinyarada ay ku midaysan yihiin si sharafta leh qiimaha badan ay hadda u fadhiyaan oo hadda doorashada ugu jiraan ugu mahadnaqaynaa. walaalayaal wada lagu qayb qaadan kara ayaad samayseen. waa idin mahad. annaga waxaan yiraahdaa Shabeelle Development Group waa dad hadda cusub oo soo kacaya, laakiin sina dhalinyaro maneen wax kastaan leenahay. odayaan leenahay, wiilaan leenahay, gabaraan leenahay. cid gaar ah naga tiro ma jirto.
marka adinka laakiin dhalinyarada isku soo koobteen odayaasha iska reebteen haweenka wana waa reebteen balse dib ma lahaanoo kulli waa iftaan kusoo dhaweynaa ku qaadan doonaa haddii alla qadaro waxaan kaloo ka mahadnaqaa sida sharafta leh asluubta leh akhlaaqda leh isu xushmaynaysaan isu dooranaysaan gudoomiyaasha u dooranaysaan wallaahi waa nidaam aad iyo aad ana laftirkeena aan kaga dayan doono insha allahu tacaala haddaan shabeelle nahay maadaama dad cusub aan nahay marka walaalayaal insha allahu tacaala waa isbiirsan doonaa waa iska warqabi doonaa inaan idin mahadnaqno oo aan idin ogaano oo aan xaalkiina la soconaan meesha u nimid si sharaf lahayn kugu mahadnaqaynaa welkan walaalayaal annaga reer shabeelle haddana waa soo dhaweynaynaa gacmo furan qalbo furan waa wixii aan dheerno aqoonan waa idin kordhin doonaa laakiin adinka hadda meesi waa corsano muddo soo socdeene waxba aan ka faa'iidi doonaa sida hadda doorashadoo kaleento asalaamu calaykum waraxmatullahi taala walaalayaal kulankan quruxda badan oo saan u soo agaasiteen waan ka mahad celinayaa oo maanta nagu sharafteen marka haddaan nahay golaha horumarinta shabeelle haddaan maqasiin shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe ma ahan waxaa waaye waa gobolka shabeelle magaalo madaxiisa uu yahay goday marka waxaa waaye annaga waxaan ka soo jeednaa degmooyin badan sida degmada mustaxiil qallaafe maadaama aan haddana aniga aan ka soo jeedo meel la yidhaha 3 baar adiga 2 baaraa tihiin laakiin 1 baaraan ku darsaday 3 baaraa la yidhaahdaa ya marka 3 baaraa la yidhaahdaa marka 3 baarkaad markaa maqashiin marka waxaad garanaysiin in dadka oo saas kugu xiran yahay oo dadkana dadka la dheer oo ahayn marka maasha allah marka kulankan wanaagsan marka annaga waxaa waaye maadaama aan nahay dad hadda unkamay oo laisku keenay marka adinkana in badan aad soo jirteen marka waxaan ka baranaynaa hadda doorashadan oo kaleeto marka waxaa waaye waa doorasho aad u fiican waan maqlaynay marka insha allah waxaan rajaynaynaa inaan annagan inku dayarno maadaama aan nahay curdun haddana aas aan nahay sidoo kale dhalinyarada ururka ka mid ah ayaa iyaguna goobta ka hadlay kuwaas oo soo jeediyay kelmado markaasi quseeya kulankan waan salaam reelo baarsa u dhintihiin aadan ugu faraxsanaa inaan arko dadkii hore arag jir dad ka badan maanta waxaan isleeyahay reelo baar dhan way soo qaxeen inta imaadeen taasna zaaid ugu faraxsanahay run ahaantiina 3 sano hadiiba intaan dhan oo qof iskugu keenay intaan howlna lagu qabtay waxaan rajeynayaa 3 kale hadaa ku darsano inaan laba baarna wax ugu qaban doono oo kaliya aan isku bar doonin run ahaantii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay dadka heerkan soo gaarsiiyay dhamaantiina waa inii mahad celinayaa qof weyn iyo qof yarba waxaan in leeyahay halkaas u taagnaada laba baar oo caraf badan yahay run ahaantii ani mar raa igu dambeysay laakiin waa jeclaalaha inaan mar kale la ii tarxiilo aadaan u mahadsantihiin waxaan kaloo rabaa inaan maarta idinku baraarujiyo deegaanka aad ka soo jeedaan ee laba baar waxaa ka jira culays fara badan oo ah xagga waxbarashada xagga caafimaadka xagga maaragtay horumarka dhinac walba leh waxaa laydinka baahan inaad u ololeysiin ood gaarsiisiin qaarkiin waxaa laga yaabaa idinka inuu jaamacada fursad u helo dhigto qaarkiin uu dhigto iskuulla secondary school uu dhigto qaarkiin maaragtay dugsi dhexe uu dhigto intaasoo dhan walaalihii aad ka soo tagteen way u baahan yihiin hadda waxaa la yagleelay oon olola maaragtay muddo dheer jiray ku guulaysanay in la furo iskool hoose dhexe oo la keeno macallimiin tayo leh oo jaamiciyiin ah oo ka yimid heer deegaan macallimiintaas waxay u baahan yihiin wacyigelin maaragtay iyo garab istaag wacyigelinta ma wadan macallinku u baahan laakiin dadka in lagu dhiirigeliyo inay waxbarashada u dareeraan waxbarashadu da' ma laha hooyooyinkaa baran kara aabbayaashaa baran kara dhallinyarada baran karta laakiin waxaan ku bogaadinayaa sidaan aad hadda wadaan inaad laban laabtaan walaalihiin hadda ka hor annagu waa ka yimid meesha hadda intaanu saan yeelo oo jirto inay soo maqan tahay waan isku ogeyn laakiin inay qayb qaadasho saan ay ku jiraan iyo marxaladan ma aanu ku ogeyn anuu saaka markaan meeshan soo galay hadda marmarka qaar waan hadli jiray laakiin waxaan la hadli waayay farxad aan ka qabo cala adnigeed sida aan ku bogaa cala adnigeed waxaan markii inii sheegaa wadanku walaalayaal bogaadintan iyo nabadgelyadan iyo waxbarashadan iyo hamigan waa waxa uu aad ugu baahan yahay 90% inaad marka idinku sidaan aad hadda u fahanteen dadka u fahansidaan dhalinyaradiina u fahansidaan laabaar kaliya ma ahan qabalayaashiisa iyo deegaan ahaantiisa aad u fahansidaan wallahi marka loo fiiriyo deegaan ahaan iyo marka loo fiiriyo waa wadan aad u qiimo badan adduunkan laga helo wallahi balse ma haysano waxa u muhiimsan baahida adduunka u muhiimsan ama laabaar ka jirta waxay tahay baahida ugu muhiimsan
waxbarasho la-aan dhallinyaradii dalku wuxuu u baahan yahay dhallinyaro u kacdo dhallinyaro wax soo barata kabacdina wixii ay soo barteen dib ugu celiya deegaankoodii teeda kale waa aragtaan waa xasuustaa wallaahi waagaan yaraay waxaa lihi jiray ciddaan ree hebela hal wiila wax u bartay hal gabaraa wax u baratay dadka lama sinna waa ka sarreeyaan sababta maxaa waaye halkaas qof ama magaalka jiro ama wax bartay dadkay uga sarreeyaan sababta waa macnaha waa meelay ku tashtaan waddan walba waxaa hormariyo dhallinyaradooda hormariyo SYL waa taqaanaa lidii sheegay maalintii iskuul soo dhigatay SYL waa dad waxay ahaayeen ka kooban adii aad u badnayn 20 aan dhaweyn waxay ahaayeen dadkii Soomaaliya maanta meesha ay taaganta gaarsiiyay waa jeclaa dhalinyaro is arursato wax qabanaysa marka arko aad baa walaa u farxa waxa uu sheegayaan meesha kaliya ee qofka bini aadamka oo ka nool yahay waxbarashada laba baar ani maanta waxay degmo ku noqon kartaan dhigi karaa haddii la helo biyo caafimaad iyo waxbarasho waxay noqon doontaa saan rajeynaa insha Allah inay degmo noqoto dhalinyaradu inay inta isgaratay urur ku midoobeen haddana ay go'aansadeen inay dadkooda iyo deegaankooda horumariyaan wax lagu farxo weeye waana wax dhab ahaantii qalbiyadana taabanayo waan ognahay dadkanaga ay caqabadaha waaweyn ay haysto maanta marka inaan helno dhalinyaro doorkii dhalinyaro ay mudnaayeen ciyaarayo wax lagu farxo waay bili aadanka waxa la dhahaa waxa ugu adag waa aqoon la'aanta mayn boqortiga ugu weyn waa aqoon la'aanta maanta marka dhalinyaro wax baratay oo fahansan caqabadihii deegaanka haystay oo ka yimid inay u istaagaan wax aad iyo aad noo dhiirigelinaya waayo waana idin garab taaganahay ugu dambeyntii dhalinyarada ururka horumarinta Lababaar ayaa gudoomiyaha golaha shuurada u doortay Leila Sheekh Umar sidoo kalena Axmed Sharaf Qodax ayaa loo doortay gudoomiyaha golaha fulinta ururka musharax gudoomiye mudane Axmed Sharaf Qodax erag yaa u codeeyay oo codka kalsoonida siiyay Axmed Sharaf yaa u codeeyay soo tiri gudoomiye ku-xigeenka iyo waxa tirna gudoomiyaha saada guddiga doorashooyinka tiri doona insha Allah هذا جنينة مشرح قدومي ليلى شو عمر وشرح عن قدومية قلاها شورده LWD أما الغبار يصل فلامنت يا وعدي وعدك كلسوني ذا سي ليلى شو عمر حاشا لله وما سنتهن النتيجة أيوة كل واحد قدك دورشين LWD سيدا عدك الله كله علي قدومية أحمد شرف قدومية أحمد شرف وشرحنا قدومية قلاها فلنتا LWD وعوه علي صدن إيوه سيداد عد علر تلتمي سنة مجرتو ساس أيونه كوبوليست صدح قف أياد ديد وعدكو دانسي إن قدومية أحمد شرف ليلو شيخ عمر وشرحنا قدومية قلاها فلنتا LWD عدك السونين ويدي ستي أرك LWD وحياها شيء أفرتن عد ليلة حلقة فياد ديدي إسحاق رشيد محمود لبابار ميديا مقالة مقدشة عاصمة الصومالية